السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Salma Maxamed. أنا magacayga waa Maidi Maxamed. magacayga waa Suways Maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومالية ملك سد أدونك كجوكتين واتسلامنتهين. ما أنتم حاربة عندنا المهيجة إن سؤالك على ويديو إن شاء الله. المهيجة عاو حاكو جرويل آد ودائرة ولا يراهدو أحمد ضيب أما أحمد نور. أحمد داي آب محل قدها في صومالي. ما شاء الله أحمد نور الله صعبيه. أحمد أوليفانت محل قدها في صومالي. ما شاء الله أحمد فوس ضواعو ما شاء الله. أحمد ليو في صومالي محل قدها لباح ما شاء الله تبارك الله. أحمد نورو أحمد هذه ما شاء الله تايا ضوعاء في صومال. أحمد هاس في صومالي محل قدها هاس بكايلو ما شاء الله. أحمد هونت اي ما شاء الله. أحمد كات في صومالي حال قدها يايور ها يا يايور أرون ها ده تقول عجيسة تعديل لغبته ما شاء الله. كاسنا وحو هاي أحمد نور ما عجيز كمان بحكرته هاي وكو عجيسة نسوي كأرديسة هذا بقولي ما كو عجيسة يايور ما تجيز ما لا عادي بده مثلا ماشي يعيرو إذا مثلا يعيرو دسنا أنا هبو سيان مركا يا يايور هبو كسيسة هذا قلت جميع ما شاء أبي عبسيت أنا كعبستين أو أديك الجيس يعيرو عدان يايور عدي أهاين مركز أنتو تكتين هبكو سيان ميا ما شاء الله. أمكاس أنا وحوه هاي أحمد نور. ما شاء الله أحمد هو محفظته هاي معانا. ما يجي يعير تجاسة وماهية يعير تدن يعير أصلا لباح وما مثلا لباح شبان العليا يا يورتي يا يورا horta sug intaana dadku u sheegayso axmed sugiyaada kale in u sheego waxaa tiri yaanyuurta iyo yaasiin u imaadeen yaanyuurti adinkoo la joogto libaaxa imaaday libaaxi adinkasoo la joogo shabeela imaaday isagoo libaax idinka celiya miya maasha allah adinka caadi matiniya igar geesiyaa taayaa marka waa mahadsantaha hooy macaane adiga su-aalihii la weydiiyo ku dhammaadeen waa noo sheekaysay maasha allah tabaaraka allah mahadsanid hooy macaan maaido waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo diyaar ma u tahay su-aalahaas waxaan kugu weydiin doonaa kelmadda luuqadda netherland ama hollandeyska ya kelmadaha waxaan ku weydiin doono anig ahaan way ila fudud yihiin laakiin adi ahaan waxaa laga yaabaa inay kula adag yihiin amaba aadan aqoonin ama aad taqaano marka waxaan rabaa insha allah inaan wax kaa weydiiyo hayma idooy waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horta mouse maxaa lagu dhahaa af soomaali si fiican u dheh dooli magaca kale ma u taqaanaa waxaan rabaa inaan ku jiirna waa la dhahaa soomaalida qaarkeedna jiir ay dhahayaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maa-idooy part maxaa lagu dhaha af soomaali maxaa waaye faras maasha allah waxaan rabaa kale inaan ku weydiiyo
steer maxaa lagu dhahaa dibi dibi miyaa mase waa dibi dibi miyaa mase waa dibi dibi maasha allah dibi haddaa dhihi lahayd waa dibiyaal badan ee naqaale dibi badan ee naqaale laakiin dibi maasha allah su-aalaan ku weydiiyey si fiican ayaad uga jawaabtay maa-ido maasha allah mabruuk waxaan kaloo rabaa sima maa-idoy waa mahadsan tahay wallaahi gabar gob ahaa tahay af soomaaliga laakiin iskool maa dhigataa oo af soomaaliga lagu barto hadda ma iskaga hadlaysaa mase waana qori kartaa waxaan ku weydiiyey ma qori karta ma ku hadashaa mase waana qortaa ida af soomaaliya adiga af soomaaliya qortaa iskoolaa lagu geeyay miya haye taad ku barat hooyada aabbaha ku baraan maasha allah ilaahay kheyr ha ku siiya adigana ee gabar fiican wax barahay tahay mahambaliyo waana mahadsan tahay su-aaluu lagu weydiina waa ka jawaabtay jasaakum allahu khayr waxaan dhahaa hooyooyinka soomaaliyeed oo intay qurbaha imaadeen labada xabo ingiriiska ah labada xabo carabiga ah ama labada xabo sawaaxiliga ah ama faransiiska ah ama netherlandka waxaa rabta dheh kula hadlayan ilmahooda oo dhahayaan يعني عصير عبا يعني عصير عبا عبا وصوماليا يعني عصير كعبا هايو جيسكي نا جيسكي حق سوق قبسه يا حديقة كو عيارة حديقة محاواي هذا ماشي كو عياران حالا ماشي كسو عيارتين في صوماليا محال قولها ويفو لكن ما قال حديقة اي دهان يا hooyooyinka ilmahooda carabiga ingiriiska faransiiska iyo hollandayska iyo luuqadaha kale ee badan kula hadla maxaa dhahaysaa ilmihiina af soomaali hadlo ilmihiin af soomaali kula hadla maasha allah aada u mahadsantaha maa-ida jasaakum allahu khayr su-aala waxaan ku weydiiyahaa inay gabar aada u yartaha maasha allah haddana waxaan rabaa inaan salmo su-aalo weydiiyo salmo horta xayawaan luuqada waddankan maxaa lagu dhahaa diiran waaye xayawaan kelmada soomaali ma xayawaan waa carabi marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marna waxaan wax kaa weydiin doonaa xoolaha marna waxaan wax kaa weydiin doonaa bahalaha maadaama afkayno hooyo ku hadla wahaynayaa samar waxaan rabaa bahalaha intaad ka taqaan inaan wax kaa weydiiyo xoolaha kuma weydiin waxaan ku weydiiyey bahalaha magacahooda tusaale ahaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo crocodile haye crocodile maxaa lagu dhahaa af soomaali yaxaas haye maasha allah adiga yaxaas waaba taqaanaaba allah hayaay yaxaas waxaan maleeyahay waa la maalaamay horta isiga ما شاء الله قطرت سلمى حارة أنا كوديو شراف وحاوي قري شراف وحاوي قري قري واي يسوق سؤال أنا كوديها هي سلمى هي هنا في صومالي محل يقولها ورابو واحد كان كنت قانا مقع كلنا وليه هاي مقع كلنا تقانا هي dhurwaay iyo maxaa la dhahaa waraabe ama waraabo haye maasha allah tabaaraka allah salmo waxaa rabaa su-aalo kale inaan ku weydiiyo salmoy camil waxaa waaye geel waaye waxaan ku rabaa inaan ku weydiiyo khayt waxaa waaye erigaasu ida miyaa mase waa riyo riyo waaye riyaha maa la maalaa mase idahaa la maalaa ku celi riyaha la maalaa haye riyaha la maalaa haye isqaab isiga muxuu ahaay idow ahaay haye aizol aykhol haye ku celi kuuley cali banjar aykhol maxaa waaye كولي على بنجر adiga wallahi bilaa cajiibata maasha allah adiga intaas su-aal cawda kugu sima salmoy af soomaali horta adiga luqada soomaaliga intaad kusoo baratay soomaaliya wadanka markaa mahaysa meeqa shanaa jirtay 4 sanaa jirtay haye laakiin maasha allah soomaaliga si fiican waa lemaano qataraa tahay
dad badan waxay jeclaan lahaayeen inay ilmo badan af soomaali inay ku hadlaan ay jeclaan lahaayeen laakiin hooyadoodii aabood u xanaaqsan yihiin sababtu waxaa waaye lagulama hadlin soomaali maahano hooyooyinka qaar ilmahooda luqaday ku bartaan markaasay ilmahana ka dhumaan markaasa hooyada la isfahmi waaya mahano ha lagu dadaalo afkiina hooyo maasha allah salmay aadaad u mahadsan tahay gabdhaha adiga camala jeclaalahay af soomaali inay ku hadlaan laakiin hadda aan aqoonin maxaad dhihi laheeday hooyadiin markasta ku xanaaqsanaada ma dhihi laheed mase waa weynaateen keligiin barta afkiina hooyo dadkana kula hadla luqada maasha allah adiga qofka ma qortaa afka soomaaliga mase waa ku hadashaawan soomaalida hore af soomaaliga ma qori jirin intuu ku hadli jiraane mogtaa carabiga ingiriiska la qori jiray soomaaliga noo lagu hadli jiray adinka ama saas tihiin waa qortiin waana ku hadashiin miya waa qortiin waana ku hadalnaa cajiib haye maasha allah salmoy taasuna waa salmo maxamed oo aad u taqaanaan maasha allah salmoy mahadsanid agana su-aalan ku weydiiyahay waayo dhamaadeen salmeye maa-ido jasaakum allahu khayran haddana waxaa su-aal iweydii rabo suways hayaay waa cabsaya wadnaha dhan joog haye وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته diyaar ah ina su-aal weydiiso haye hulan waxaan imaaday 2010 bishii 11aad 10keedii imaaday ama 2000 waxaan imaaday 2010 imaaday November markay marka holan imahay waxaan ka aaminsanahay holan inay tahay meel qatar waxaan ka aaminsanahay inaan markaan tago horta marka ugu horeysa markaan holan airportkeeda ka dego waxaan ka aaminsanahay baabuur aan qof wadin maadaama yar imaaday ya baabuur aan qof wadin automatic oo kaligiis iswadan sugaayay markaas waxaan arkay baabuurna wado waxaan dhahay inteen joognaa aan dhahay markaas waxaan dhahay Europe intee Holland oo baabuurka lagu wado maxaa waaye meesha qatar aan soo aadnay ma ogeyn inaan baabuur waday waxaa leeyahay haye oo baabuur automatic ma maqashay ana marka sababta uu madaxay waxaa waaye meel maasha allah lacagtu iska taalo baabuurta kaligood iswado iyada dhan muqatara oo adduun aan ka aaminsanahay kadib waxaan arkay inay tahay wadan iska caadiya waxaa kaloo iga yaabiyey markaan arkay markaan arkay ida badan meel daaqaayo lo badan dameero ahnaya oo yurubna kuwan kaaga soo ya markaas waxaan ku dhahay meeshaan yurub ma ahan haye oo midaha ido iyo dameero iyo lo waxa igu yaabka badnaay markaan arkay ido iyo dameero iyo lo oon xamar joogin ee yurub iga soo horeeya taasina waxaa la yaab kale aheeday ها Soomaaliya waa u xiisay maxaa ka xiisay Soomaaliya maxaa ugu xiisay waxaan ugu xiisay inay tahay dalkaygu hooyo waalidkaygii walaalahaygii ehelkaygii asxaabtaydii dariskaygii maasha allah wax badan ugu xiisay xasuusin caawa yaana ooyin suwaysay waxaan ugu xiisoo kale markaa xamar deganaay maan tusaale ahaan gabar dariskayga waxay rabtaa suuqa inay suuqa aado markaas waxay dhahaysaa fartuune hee suuqa u socda maxaan kuu doonaa alla kaala adeeg ii keen ya meeshaana deris ma lahan soomaali dhan ma lahan ya wax badan ugu xiisay marka waa mahadsan tahay su-aalaha soomaaliya ha igu badinin caawa hooyo waa mahadsan tahay su-aalaha ku weydiiyey si fiican ha ugu jawaabta maido salmo hooyo سويس hooy maanta ما شاء الله تبارك الله هذا أمها سنتين خير الله هذا السيو إن شاء الله برنامج كان حالي هذا وعي قلن يا مرك إن شاء الله من
بارت دري ولا سعان غيبتا سدحات وادلس ولا سعود دونان أصحابتينا أذن كان هذا ما هسنتهن واختينا خالي كان هذا كم هالعناية خيرنا الله إذن سيو قبل ما شاء الله أخلاق الله أستوران أستحيا لها تينا الله إذن هذا إذن داوناين ما شاء الله مشينا كسي هاي أيوة خير الله إذن سيو وأنا ما هسنتهن باي باي.